السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما نقيات يوتيوب أنا سلامي عشر كنا وعكو سابسي هاي سيدان وكلا صار لهن PNG iyo JPG marka muhiimadu waxay tahay wax badan ayaa u dhaxeeyo waana sawiro kulli marka hadii sawirkan aan moving ku sameeysid uu dhaqaaqa waa kitaab macnaha meesharti sawirkan waa geeysan kartaa sidaartana u sameeysan kartaa laakiin markaan sawirkan u laabano een move to imaano ma dhaqaaqayo wax dhaqaaqay ma lahan hadii aan background-ka ka furno xitaa een sawirka ma dhaqaaqayo ee waxa dhaqaaqayo een macal background-ki ayaa isla dhaqaaqayo marka hadii si kala duwan magaca markaan saaro muuska saaro waxa ku soo baxayso inay ku qoran tahay een growbook meesha ugu dambeeya ku qoran .png kana ku qoran .jpg waxyaabo badan kala duwan marka hadii hadda kana marka tusaale aan idin kana sawirkan ayaan save gareynaa hadii aan save gareyno waxaan ku save gareynaa JPG marka sida u save gareeyo ayaa aragno file menu save kadibna meeshan ayaa maalina waxaan ka dhiganaa JPG ayaan ka dhiganaa kadibna sidiisa ayaan u dhaafeynaa waxaan leenahay save ayaan leenahay waxa arkaysaa white ayuu u bedelay meesha fiiri background-ku ka bedelay white ayuu u bedelay okay hadana sidiisa ayuu ku soo celiyay faatana file menu hadana open aan meesha ku laabano aan soo qaadno nuuciyaha kan waa PNG kana kan waa JPG-gi aan ku dhufaa soo furno marka u jeeda background wata ma dhaqaaqinayo hadii xitaa marka sawirkii marka hore wuxuu ahay background normal ahayn waa PNG sababtoo ah JPG marka u save garisid asaa background siina waa si automatically ayuu ugu xiriyaa background ayuu siina laakiin PNG hada ku sameeysid background kuma sameeyo meesha aragtid ayaad geeysan kartaa macnaha sawirada badan oo aragtay ay meelaha la saaro ama qofkii la soo jaro sawir kale la dul saara lagu dal habeenayo waxa loo isticmaalaa PNG ama GIF iyo PNG waxyaabo ay ku kala duwan ayayna marka la ka hadlayna xagga kalarada iyo waxyaabo badan ku kala duwan yihiin iyo JPG-gana asagana waa sawir caadi ah marka hadda u jeeda white ayuu siiyay marka sidaas ay ku kala duwan yihiin marka wixii Photoshop inta ku sameeyay ay jirtid aragtid inaad sawir dul saartid muhiimadu waxay tahay inaad ku save gareysaa hadii aad meel dhiganaysid PNG marka insha Allah been laakiin wixii su'aalo comment ayaa ku soo qori kartaan muhiimadan waxaan ka hadlaynaa waxay tahay caawadam inaan sawirada kala sheekeyno noocyadooda iyo sida magaca loo kala bixiyo muhiimadu waxay tahay dadka casharada waxaan lagu talagalay dadka bilowga inay ka faa'iideystaan insha Allah waxaan rajaynayaa inay ka faa'iideysan doonaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وجزاكم الله خير.